الله الرحمن الرحيم أنا قدومي كحيان كدلت السوشيانسا ورد بالشدة رأي ككونفرطة برتمها صوماليا ما أنت وحان هالكان أمبليو أن أودرينا دمان أمد الصوماليات ميل البوية جوغان أمبليو دا سوكو آدن maalinta xornimada iyo calanka Soomaaliyeed ee kowda Luulyo taasoo ka dhigan maalin aad ugu weyn shacabka Soomaaliyeed maxaa yeelay xornimadu waa shay qaali ah sidaas oo kale xornimadu waxaa loo soo furay naf iyo maal ayaa loo soo furay haliyeeyo badan ayaa ku waayay maaragtay naftooda ku waayay sidaas darteed maanta xilligan la joogo oo ah 58 guuradii ka soo wareegatay maalinka Soomaaliya ay xornimada qaadatay 1960kii 1 July ayaan xusaynaa waxaad ka dareemi kartaa 58 sano in ay tahay qaran da'yar inaan Soomaaliya nahay qarankaas oo u baahan intiisa badan 58 sano 30 sano in ku dhow qarankan wuxuu ku soo jiray burbur saas darteed waxaan dhihi karaa ma helin xilli qarankan oo dadkiisu u hiiliyaan oo si nabadgelyo ah horumar leh oo maaragtay wanaag leh qarankan iyo bulshada Soomaaliyeed ma kala noolaadaan wali lama helin haddii la helayna muddo yar oo aad u yar bay ahayd waxaan halkaan maaragtay dhammaan ummadda Soomaaliyeed ugu baaqayaa in maaragtay loo hiiliyo qaranka xaaladda meesha uu maanta ku sugan yahayna kor looga qaado oo iyadoo caqabadaha waaweyn ay jiraan sida qabaa'ilka maaragtay qabyaaladda ay ka mid tahay iyo musuqa aad noo dilaaday oo maaragtay oo hoos noo dhigay intaasna waxaan jeclahay ummadda Soomaaliyeed inay ka midowdo oo isugu timaado maaragtay midnimo iyo walaal inay isugu yimaadaan si qarankan aan ugu hiilino sidaas darteed waxaan hadalkayga ku soo koobayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay hambalyo ciidda maalinka xornimada Soomaaliyeed aad ayaad u mahadsantihiin Bishema,